لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. halkan waxaan ka gelaynaa casharkii sideedaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ah. casharkeena wuxuu maanta ka bilaabanayaa aayadda 62 ee suuratulbaqara. waxaan kusoo jirnay qisadii reer bani israa'iil. aayaddaani waxay soo dhex gashay qisadoodii. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadkii muuminiinta ahaa ee ambiyadii hore rumeeyey oo waqtigii rasuulka lasoo diray soo gaara iyagoo muuminiina sidii waraqa binu nawfal iyo salmaan ulfarisi iyo raggii la midka ahaa iyo kuwii yahuudda ahaa iyo masiixiyiintii iyo qolo kaloo saabi-in la yidhaaho waa yahuuday ka leexdeen ama nasaaray ka leexdeen labadaba la yidhaahdo. intaasoo dhan isku soo duuduube qofkii hadda markii nebi maxamed lasoo diray ilaahay rumeeya, maalinka aakhirana rumeeya, camal fiicanna la yimaada, kuwaas ayaa ajar leh oo aan cabsi iyo kurbana ka dambeyn. laakiin qofkii yidhaahda anigu iimaanaan hore u haysto ilaahay ma rumaynayo hadda oo nebi maxamed diintiisa ma rumaynayo ama maalinka aakhiro, amaba yidhaahda yahuudkaygan ku dheganaanaya ama masiixiyadayda iyo wixii la mid a, kuwaasi ajar ma leh. hadda waa inay nebi maxamed raacaan, ilaahay rumeeyaan, maalinka aakhira rumeeyaan. taasuu ilahay noo sheegaya. ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey waa kuwii nebi maxamed ka hor iimaanka haystay, iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay yahuudda ahaa, iyo wanasaara kuwii masiixiyiinta ahaa, iyo wasaabi-iina kuwii leexday oo waa yahuuday ka leexdeenna waa leeraa, nasaaray ka leexdeenna waa leeraa. man aamana qofkii rumeeya billaahi ilaahay qofkii rumeeya oo iimaan la yimaada, ilaahay uu rumaysan yahay markii nebi maxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam, walyowmi maalinkiina rumeeya al aakhiri dambeeyey, oo wacamila camal fala saalixan camal wanaagsan oo shareecadii nebi maxamed ku dhaqma, maahan wuxuu hore uu usii haystay. falahum dadkaasi waxay leeyihiin ajruhum ajarkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin. ilaahay ayaa acmaashaas ka ajar siinaya. laakiin acmaal kale ee shareecada nebi maxamed aan ku salaysnayn ee qofku yidhaahda diintaydii aan ku dhaqmaya, wax ajara ilaahay ogama helayo. waa inuu camalka saalixaahi ku salaysan yahay shareecadii nebi maxamed mar haddii nebi maxamed lasoo diray. dowladda cusubaa dhalatay, dowladihii hore o dhan waqtigoodu waa dhammaaday. walaa khawfan cabsina calayhim korkooda ma ahaaninoo kama cabsadaan aakhiro, ma cabsanayaan aakhiro, wax cabsiya ma arkayaan. walaa hum ayaguna yaxzanuuna kuwa kurboonaya ma ahaanin oo dadkii xataa adduunyada kama kurboonayaan. cabsi iyo kurbo midna dadkaas lama tusayo haddii ay dhintaan. ilaahay marka qisadii reer bani israa'iil u laabtoo noo sheegaya. ilaahay asagoo la hadlaya yahuuddii wuxuu leeyahay waid waqti xusa oo xusiista akhadnaa aan qabanay reer bani israa'iilow miithaaqakum ballankiini aan ku qabanno, ballanta aan idinla galnay, ballantaasina ay ahayd inaad ku dhaqantaan oo ku camal fashaan kitaabkii towraad. kitaabka towraad qaata oo ku dhaqma oo ku camal fala, ballantaas aabbayaashiinaan la galnay oo ogaada. oo warafacna markii ilaahay ballankaas uu la galo yiri ku dhaqma kitaabkan, ayay qaada diideen oo diideen nimanka madaxa adag weeye. oo warafacna aan kor yeelnay ilaahay leeyahay fawqakum dushiina aduura buurkii aan kor yeelno, buurtii dhammeeda inta la fujiyey
aada dusha laga saaray dushooda la keenoo layidhi qasab ku qaata kitaabka oo aanan niri khuduu qaata maa aataynaakum waxa aan idin siinay oo kitaabkan aan idin siinay biquwatin dadaal iyo ijtihaad ku qaata si dhab ah u qaata baryo ma ahana ilaahay subxaana wa tacaala leeyahay intaasoo nicmaa ladiin galay intaasoo khilaafa la timaadeen kitaabkaana la idin siiyey qasab ku qaata laleeyahay marka markaas xusiista ballantaas wadkuruu xusana maa fiihi kitaabkaas waxaa ku dhex jira xusa oo maaragtay ku dhaqmaan macnaha laga wada ku camal fala axkaamta kitaabkaas ku jirta ku camal falo oo raaca maxaa imaanaya markaas haddii kitaabka inta qaataan ay ku dhagaan oo ku camal falaan oo ku dhaqmaan maxaa imaanaya lacalakum waxaa mudantihiin oo dhacaya tattaquuna inaad ilaahay ka cabsataan tattaquuna inaad naartii iska ilaalisaan inaad macaasida iska ilaalisaan mar haddii kitaabkaas aada raacdaan marka xusiista waxyaalahaas oo aabbayaashiinii lagula soo ballamay idinkuna khilaafka yareeya maxaa intaas ka dhashay marka uma intaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen reer bani israa'iilow oo aabbayaashiina way jeesteen min bacdi daalika arrintaas ka bacdi markii ilaahay subxaanahu wa tacaala ballankaas adag ee daacada inay ku dhaqmaan kitaabka lala galay way ka jeesteen daacadii marka maxay ahayd haddii ay intaasoo khilaafa la yimaadeen in la halaago soo maahan ayaga dhan ilaahay wuxuu leeyahay falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisu haddii uusa jiri lahayn oo uu ku tafadulay calaykum korkiina hadda aabbayaashoodii lagu tafadulay oo loogu naxariistay marka aabbayaashii wixii loogu tafadulo loogu naxariistana ayagaa loogu naxariista ilaahay fadligiisa iyo tafadulkiisu hadduusa jiri lahayn calaykum korkiina uu idinku tafadulay iyo waraxmatuhu naxariista ilaahay uu idiin naxariistay oo uu toobadii idinkugu naxariisto markaad dibiga caabudeen toobada idinka aqbalay maaragtay cadaabka inka dibdhiguusa idin halaagin ilaa fircoon iyo qoomkiisi waa la halaagay ilaahay markay caasiyeen adinka laakiin waa laydiin kaadiyey taas raxmadda uu ilaahay idin naxariistay iyo fadligiisu haddii uusa jiri lahayn lakuntum waxaa ahaa lahaydeen min alkhaasiriina kuwa hooga oo khasaara kuwa ka mid ah laakiin ilaahay fadligiisa hesheen waxa weeye asagaa cadaabka idinka dibdhigay asagaa idinkugu naxariistay inuu toobadiina aqbalo laakiin xaq wuxuu ilaahay u lahaa inuuba idin halaago sidii fircoon iyo cid kastoo beenisa u halaagay intaasoo nicmaa la idin siiyey oo aad ka daba wareegteen ilaahay ka daba wareegteen allahu akbar waxaa kaloo la xusiisinayaa qolo ayaga ka mid ahaa ee xadgudub la yimid ee la ciqaabay qoladaas waxa weeye ay magaalo la dhihi jiray niman deganaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u nicmeeyey ilaahay markuu u nicmeeyey ayuu ilaahay wuxuu doonay inuu imtixaano marka way kalluumaysan jireen ilaahay maalinka sabtiga ah wuxuu yidhi nasta oo acmaasha ka nasta maalin fasaxa idiin noqdo yahuudda maalinkaasa fasax u ah masiixiyiintana axaddaa fasax u ah muslimiintana jumcada ayaa fasax u ah marka sidaa darteed maalmahaas waa maalmo fasaxaho mid kastoo ka mid a in la soomo soon sunnaa keligeed la soomo karaahiyo weeye inaad jumcada soon sunnaa ku gooni yeeshid oo aan sabab lahayn ama sabtigii ama axaddii a ku gooni yeeshid karaahiyo weeye laakiin haddaa israacinaysid oo aada wada soomaysid dhib male ama maaragtay 2 maalmood aad soomaysid marka ilaahay wuxuu leeyahay nimankaas ahlu ayle la yidhaahdo ayuu ilaahay si u imtixaano ayuu ilaahay wuxuu yidhi maalmaha dhan kalluumaysta markii laga reebo sabtiga ha kalluumaysanina niman loo nicmeey ahayn ilaahay markaa saas markii uu yidhi si iimaankooda loo ogaado kalluunkii maalmihii kaleba way arki waayeenba maalinka sabtigaana baddu iska kor sabaynaya farihii ka batay markaas ayaa ibliis waswaasiyo wuxuu yidhi xeelad ayaa idiin sheegaya waxaad samaydaan kanaallo iyo godad qoda godadkaas maalinka sabtiga ah idinkugu daato ku daboosha maalmaha kala baxa sidii sameeyeen waa xeeladaysteen marka waxa ilaahay ka reeb waa xeeladaysteen marka 3 qayb ay u qaybsameen qaybi waa kuwa kalluumaystay oo sabtigii sameeyey qaybina waa ka nahiyeen oo warjoojiyay yiraahdeen qaybina waa ka aamuseen ilaahay marka subxaanahu wa tacaala kuwii sabtiga kalluumaystay waa uu halaago daanyeeraa loo bedelay muddo yar ka bacdina waa ay dhinteen waayahay
daanyaradaasi ma ahan kuwa hadda adduunyada jooga, waa kuwaas waa la halaagay. qeybtii kalena sida raajixa kuwii ka celiyay oo dembiga joojiya yirina waa badbaadeen iyo kuwii kalaba. ilaahay marka wuxuu leeyahay walaqad calimtum waxaad ogaateen reer bani israa'iilka hadda joogow oo aada warkooda haydaan, kitaabkiinuna uu sheegayaa aladiina kuwii ayaad ogaateen ictadow xadgudbay, aladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum adinka in ka mid ah fi sabti maalinkii sabtiga ku xadgudbay oo kalluumaysigaas ku xadgudbay ayagoo laga reebay marka xeeladaystay. oo faqulnaa aan niri lahum ayaga aan ku niri kunuu noqda oo ahaada qiradatan daanyero ahaada khaasi'iina la fogeeyey, ilaahay raxmadiisa laga fogeeyey, waana la halaago 3 maalmood ka bacdi waa la halaagaa la yiraahdaa. marka waa garataan dadkii ilaahay subxaanahu watacaala beeniyey, nicmadiisa ku jasaaray, shaakiriinta noqon waayey, ilaahay khilaafay sida loo halaagay. marka dhankii halaagiina waa laydinkaga sheekeeyey ciddii la halaagay, inta nicmo idinka aabayaashiina loo soo galana waa laydinkaga sheekeeyey. fajacalnaa waxaan ka dhignaa ilaahay leeyahay haa dhacdadaas oo nimankaas la halaagay ciqaabkaas lagu sameeyey nakaalan wax cibro qaadasho ah, cibro qaadasho limaa kiyan cibro qaadasho uga dhignay bayna yadeeha horteeda ahaado dadkii hor joogay oo arkayay oo waqtigeedii joogay ayaa ku cibro qaatay, iyo wamaa khalfaha ciddii ka dambayso wixii ka dambeeyey oo ilaa qur-aankii iyo kitaabihii ka sheekeynayee ciddii ka dambaysana cibro qaadasho ayay u noqotay. cid kastoo ilaahay khilaafta inuu ilaahay halaagi karo ayay cibro qaadasho u tahay. wa mawcidatan wacdi iyo waanana waan ka dhignuu ilaahay leeyahay lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa oo mutaqiinta ah, ayagana waana ayaa uga dhignay. waxa ayaga loo gooni yeelo gooni loogu sheegay ayaga weeye waxa ku intifaacsada oo ku faa'iida wacdiga. ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu nooga sheegayaa qisadii saci reer bani israa'iil. waa saci suuradda dhanba loogu magacaabay suuratulbaqara, yacni suuraddii saca. qisadaani waxay ahayd nin ayaa waxaa jiray adeerkiis ayaa wuxuu ahaa nin hodan ah oo hantiilo ah. ninkii hodanka ahaa oo hantiilaha ahaa ayuu marka wuxuu rabay inuu dhaxlo, dhaxalkii ayuu sugi waayey. markii uu dhaxalkii sugi waayey ayuu wuxuu sameeyey ninkiiu dilay. ninkii ayuuba sidiisaba qartab ka siiyey. markii uu qartab ninkii ka siiyey oo dilay ayaa waa ina adeerkiis wey, adeerkiis mahan. ninkii markii uu qartab ka siiyo dilay, macnaha 2 nin ay ahayna waa la yidhaha waxa dilay. calaa kulli xaal waa la dila ninkii, niman ilma adeeradiisana dilay. markii ay dileenna waxay rabaan dhaxalkaas inay helaan. ayagiyaaba soo sheegtoo yiri war ninkeeniyaa nala ka dilay, waa la isqabsaday, adinka ree hebelaa dilay iyo ree hebelaa dilay iyo waa la isku tuurtuuray. ilaahay subxaanahu watacaala markii uu arrintii cakirantay ayay waxay yidhahdeen nebi muuse ilaahay noo bari si arrintan noogu caddeeyo. nebi muuse ilaahay u baryey. ilaahay wuxuu yidhi sac inta gowracaan qeyb ka mida saca ha ku garaaceen ninka meydkaa. sayntiisa waa leeraa qeyb kale waa ahayd aduu bibacdiha qur-aanku sheegay. sacii markii ay sidaas ilaahay nebi muuse ku yiri, nebi muuse ayaga wuxuu ku yiri sac gowraca qeyb ka midana ku garaaca ninka meydkaa. waxay yidhaahdeen waaba nagu jeesjeesaysa, waa nagu cayaaraysaa, ninaa naga dhintay, ilaahay noo bari baan ku niri, waxaana na leedahay sac qala. ilaahay wuxuu yiri sac qala, sax mahan taasi. marka wuxuu yiri nebi muuse ilaahay ka magangelaya inaan jaahil noqdo, arrintaas waa sax sameeya. sicii marka ayay su-aalo badan weydiiyeenoo su-aalihii badnaa waxay keeneen in lagu adkeeyo. su-aalaha badan markasta ma fiicna, qofka xaqa haddii loo sheego inuu qaato ayaa fiican. inamaa ahlaka aladiina min qablikum kathratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim. ummadihii hore waxaa halaagow leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam su-aashooda badan iyo ambiyadooda ay khilaafayeen. marka ninkaasna marka arrintii ninkii waa soo noolaaday markii lagu garaacay saci. aduu calaa kulli xaal qisadoo ka sheekay doonaa. waxa weeye saci waa raadiyeen, wiil oo baari hooyadiis u ahaa agtiisa ka helana leeraa.
lacag fara badan ayuu uga gato qaaliya, marka iyadoo dhib ay ku tahay inta soo gateen ay qaleen. hadda saci ayaga isku adkeeyo su-aalihii badnaaya ku adkeeyey, markii ay qaleen oo ninkii ku dhifteena ninkii waa soo noolaaday. ninku markuu soo noolaadana hebel iyo hebel ay dilu yiri waana iska dhintay. marka labadii nin oo dilay waxay u dileen inay dhaxlaan, dhaxalkii degdegsanayeen laakiin dhaxal ma leh. oo waxaa qofka qaatilka ahi ama ka qayb galaba dilka dhaxal ma leh. waxaa la yidhaha man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani, qofkii shay degdegsada intaan waqtigiisa la gaarin in laga hoojiya lagu ciqaabaa. marka dhaxalba ma ay yeelanba nimankii ilaa qaatiliin weeye. ilaahay marka qisadan wuxuu rabaa inuu noogu sheego, oo qisadan ka sheekeynteeda kale waxaa dheer, ilaahay maadaama ninkaas dhintay uu soo nooleeyey reer bani israa'iiliya, waxaa la xusiisanayaa allaha sidaas u soo nooleeya ninkaa dhintay oo idinka in ka mid ahaa wuu awoodaa inuu hadhowna qiyaamada soo nooleeyo kuwiina dhintay ee uu abaal mariyo. qof kastaba wuxuu gutay ku abaalmariyo ogaada. ilaahay marka wuxuu leeyahay waid waqti xusa ama nebi maxamedow xus, qaala uu yiri muusa nebi muuse liqowmihi dadkiisii uu ku yiri tolkiisii, ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin farayaa ama ya'murkum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad qashaan, idin faraya ilaahay ama inaad qashaan baqaratan sac inaad gowracdaan oo biraysan ayaa ilaahay idin farayaa. qisadii ninkii weeye. sacaasna qayb ka mid a ku garaacdaan ninka, kabacdina wuu soo noolanaya. qaaluu waxay yidhahdeen atattakhidunaa ma waxaad naga dhiganaysaa husuwan jees ama husu-an jees iyo kajan miyaa naga dhiganaysaa, ma nagu cayaaraysaa? ilaahay noo baryaan ku niri qisada ninka si ay noogu kala cadaato. adna waxaa leedahay sac qala, waaba laba khasaaro. ninkii ridu inta digsiga madaxa la gashay yiri rida ha la bireeyo, markii la bireeyey kabacdina yiri haddana dheriga ha la jabiyo. waa sidii oo kale qisadu u agto, macnaha ninkia naga dhinta haddana sac qala, suuragal maahana yirah, hanagu cayaarin. nabi muuse wuxuu yiri maya saas maahan. qaala nabi muuse wuxuu yiri acuudu waan magan galayaa bilaahi ilaahay an akuuna inaan noqdo min aljaahiliina kuwa jaahiliinta ah ayaa ilaahay ka magan galayaa. dadka ku kajama ku jeesjeesa iyo liida, sideedana haddaa aragtid qof dadka liidaya oo xaqiraya waa qof kalsooni darro asagu haysta oo muujinaya inuu dadka ka sareeyo, inuu asagu isla weyn yaho fiican yahay ayuu muujinaya. asaga wuxuu rabaa inuu muuqdo dadka hortooda. laakiin qofku markuu isku kalsoon yahay oo naftiisa ku kalsoon yahay, cidna faan iyo ammaan kama raadsado. marka nabi muuse wuxuu yidhi ma ahan kajan, ma ahan idin kuma cayaarayo, maskaxdiina iyo caqligiina ma yesayo, waa wax runa. ilaahay aan ka magan galayaa jaahiliinta inaan ka mid noqdo, jaahiliinta dadka ku kajamo. qaaluu waxay yidhaahdeen marka nimankii saci, marka haddii sac naloo diray inay sac kasta iska gowracaan ahayd, laakiin su-aali isku badyan. waxaan rabnaahay leeyihin haddaba saca inaan ogaano da-diisa. qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaaga noo bari oo noo tuug, yubayin alla ha caddeeyo lanaa annaga maa hiya sacaasi waxa ay tahoo da-da sacaasi uu jiro, si ilaahay noogu caddeeyo noo bari. qaala wuxuu yidhi nabi muuse inahu ilaahay rabbigaygu yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun waa sac, laa faaridun mid da-weyn oo duqa aan ahayn, walaa bikrun mid yar oo dhalinyarana aan ahayn, cawaanun mid u dhexdhexaysa wey bayna daalika arrinkaas. duqda iyo waxay u dhexaysaa tan yaroo bikaarada. marka mid dhexdhexaysa iska qala, ha isku badinina su-aashe. fafcaluu sameeya maa tu'maruuna, waxa la idin farayo sameeya. ha isku badinina su-aasha oo gowraca sacaas. haddana waa ma aysa joogsan, waxay rabaan inay midabkeeda ogaadaan. balxaa ku wata. qaaluu waxay yidhaahdeen udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari, yubayin ha caddeeya lanaa annaga maa lownuha midabkeedu waxa uu yahay, qaabkay u agta. qaala nabi muuse wuxuu yidhi inahu sacaasi inahu ilaahay rabbigaygu yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun waa sac safraau ee jaallo ah, aad u jaallo oo haruud ah, midabkaas leh yalowga ah, faaqicun uu daran yahay lownuha midabkeedu, macnaha aad u jaallo ah, midabkeedu waa saafi wey. tasuru waxayna farax gelinaysaa annaadiriina kuwa fiirinaya
ayaa quruxdeeda la yaabaya oo ay farax gelinaysaa, indhahooda ay farax gelinaysaa, cajab gelinaysaa. kow kuma ekaysan, haddana waa sii wadeen. waxay rabaan inay haddana ogaadaan sacaasi inuu yahay sac la layliyo lagu shaqaysto iyo sac kale inuu yahay. qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari, yubayin ha caddeey lana annaga maa hiya sacaasi waxay tahay. macnaha inay tahay sac lagu shaqaysan jiray iyo inay tahay sac aan la taaban oo la layliin. ina albaqara lo-dii tashaabaha waa isku ekaaday calaynaa korkeenna, waa iskaga kaana ekaaday yidhaahdeen. marka waxaan rabnaa inaan ogaano saca ay tahay noocaas. weliba markaan ilaahay wuxuu waafajiyey inay soo istithnaadana insha allah yidhaahdaan. wayna anaguna insha allahu ilaahay haddii uu doono lamuhtaduuna kuwa hanuunayaana hoo macnaha waa samaynaynaa, waa waafaqaynaa. marka haddii aysan insha allahudaas dhihi lahayn weligeed su-aashaasa ku soco laheed, ay wadi lahayn kuma hanuuneen. kuwa hanuunaya ayaana. qaala nabi muuse wuxuu yihi inahu ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun waa sac laa dhaluulun mid la layliyay aan ahayn, oo macnaha kuwa sac inta la layliya hayin oo la rarto aan ahayn. oo macnaha rarashadii waa tan oo layliyada wuxuu loogu talagalay oo tuthiru gedisa al arda dhulkii, mid beerta lagu falo dhul carada gedisa aan ahayn oo saas loo layliyay. walaa tasqii mid waraabisana aan ahayn alxartha dhulkii iyo beerihii mid waraabisana ahayn, oo sac la tababarayba ma ah. midda kale musallamatun mid oo ceeb ka nabad gashay wey, wax ceeb ah ma leh, ceeb oo dhan ma leh. musallamatun mid ka nabad gashay wax ceeba weye, iyo camalkii shaqada oo karin iyo male yacni rarkii kama muuqdo. laa shiyata barna fiiha dhexdeeda ma ahaanin, wax bara ma laho midabka jaallaha ah oon idinkaga soo sheekeeyey kaliya ayay leedahay. qaaluu waxay yidhaahdeen al-ana hadda ayaa ji'ta la timid bilxaqi runtii, yacni tilmaantii dhammayska tireeday ka wadaan. intaasoo dhan markay nabiga ilahi kasoo daba wareegeen mar kastaba tilmaan saxuhu la imaanayay ayagan alla waafajin. marka hadda ayaa tilmaantii dhammayska tirneed bilbayaani taam ah hadda la timid ay leeyihin. fadabaxuu waa ay gowraceen haa sacaas waa ay qaleen, walxaal ayay gowraceen maa kaaduu aysa ahayn yafcaluuna kuwa maa kaaduu aysa sigin yafcaluuna inay samaynayaan. macnaha kumaba aysa dhowaanba inay gowracaan, sida uu sacaasi qaali u yahay ayay aada uga fogaayeen, waa ka cabsadeen. marka waa sameeyeen markii dambe ayagu marka hore ku siganba inay sameeyaan. ilaahay marka halkan wuxuu noogu sheegayaa qisada bilowgeedii sidii ay u dhacday. halkaana ayadahan halkaa taas ka waramayaan. waid waqti xusa reer bani israa'iilow qataltum aada disheen nafsan naf aada disheen, waa qisadan bilowgeedii. oo fadaara'tum aada isku tuurtuurteen, isku reebreebteen, isku dhiidhiibteen fiihaa naftii, hebelaa dila iyo ree hebelaa dila iyo ree hebelaa dila iyo. wallaahu ilaahayna mukhrijun wuxuu banaanka soo dhigayaa maakii kuntum a ahaydeen taktumuuna inaad qarinaysaan. oo ninka idinka idinka mid ah ama nimanka idinka idinka mid ah ee dilay ninka si xoolihiisa ay u dhacaan, been ceebtooda iyo fikradoodii iyo niyadoodii xumeed ilaahay baa banaanka keenaya. oo faqulnaa aan niri idribuu garaaca ruuxii oo meydka ahaa bibacdihaa saca qayb ka mida ku garaaca. saca qayb ka mida ku garaaca, saynteeda waa la yiri. culammada qaybo waa ku fasiraan yani cajbu danabka waa la yiri, carabkeeda waa la yiri. calaya kulli xaal saca qayb ka mida ku garaaca. ilaahay marka wuxuu leeyahay sidaasaa idin yar. marka tusaale kale adilo kale aan idinkaga uga jeeda ilaahay leeyahay o sida ninkaas aan usoo noolaynay oo aa u aragteen oo taariikhdiisa u haysaan, anaguna dadka dhimanay hadhow qiyaamada usoo noolaynayna. kadalika sidaasaa yuxyi llaahu ilaahay wuxuu soo noolaynayaa almowtaa dadka dhintay. dadka dhintay ilaahay soo noolaynayaa. wa yuriikum wuuna idin tusinayaa ilaahay aayaatihi aayaadkiisa iyo awoodiisa calaamaadkeeda aayadihiisuu idin tusinayaa ilaahay. lacalakum waxaa mudan tihiin tacqiluuna inaad waxgarataan oo fakartaan oo tadaburtaan oo ilaahay waxa uu idin leeyahay aad raacdaan. mar haddaa intaasoo shay ogaateen oo ilaahay idiin sheegay kutubtiinii hore waxaa ku yaala kutubtiinii oo aabbayaashiini ka dhacay.
ilaahay marka intaasoo qiso marka u soo sheegay iyo intaasoo loo nicmeeyey iyo inta halaag soo dhacay, inta dhibaato lagu qabtay, cuquubaad ee ay wacdisami waayeen, ilaahay wuxuu leeyahay dad qalbigoodu qalala ayaa tihiin. uma intaa ka bacdeed qasad waxaa qalashay quluubukum, quluubtiina ayaa qalashay ilaahay leeyahay. min bacdi daalika, intaas kadib quluubtiina waa qalashay, dad qalbigoodu angaga ayaa tihiin. waayahay, min bacdi daalika, intaas kadib ayaa qalbigiinu qalalay. wixii laga soo sheekeeyey maaragtay ninkii dhintay oo lasoo nooleeyay iyo wixii kasoo horreeyay o dhan maantao dhan. fa hiya quluubtiinii kal xijaarati, waa dhagax oo kale, ow ashaddu, ama waaba ka daran tahay qaswatan xagga qaleylka, waaba kasii qalalan tahayba. dad noolba ma ihdinba. oo dhagaxii inay ka daran tahay daliilkaana tusinayo, wa ina min alxijaarati, dhagaxda waxaa ka mid a lamaa dhagax yatafajaru ay kasoo butaacaan minhu dhagaxa xaggiisa al anhaaru, webiyaasha biyahooda. webiyaasha biyahooda dhagaxay kasoo butaacaan, dhagaxda kaasaa ka mid a ooba qoyayoo biyo ka imaanayaan. wa ina minhaa waxaa ka mid ah dhagaxdii lamaa dhagax yashaqaqu dildilaacaya oo taas waa yashaqaqu dildilaacaya, oo fa yakhruju ay kasoo baxayaan minhu dhagaxa xaggiisa almaa u biyihii ay kasoo baxayaan. waa dhagax kale inta dildilaaca biyo kasoo butaacayaan, waa qoya dhagaxaasi. wa ina minhaa dhagaxdii waxaa ka mid a lamaa dhagax yahbidu soo dhacaya, oo buurtii dhaladeeda kasoo dhacaya min khashyatillaahi, ilaahay cabsidiisa lasoo dhacaya. oo dhagaxda buurta kasoo dilindiloomaysa soo dhacaysahay iskama soo dhicin, ilaahay cabsidiisa lasoo dhacen. marka dhagaxdii saasayba u saamoobaysaa, laakiin adinku ma saamoobaysaan. marka quluubtiinu waa ka daran tahay, waa ka adag tahayba dhagaxdii, aw ashaddu qaswa. wama allaahu ilaahayna ma ahaanin bigaafilin, alla moog ma ahaanin, camaa tacmaluuna, waxa aad samaynaysaan alla ma mooga. waa ogyahay reer bani israa'iilow, waxa aad samaynaysaan ilaahay ma mooga ee waa ogyahay, ee wuxuu idiin dib dhigayaa waqti kale uu xisaabtiina iyo ciqaabkiina uu ilaahay subxaanahu watacaala uu u dib dhigayaa. waxa weeye ama bigaafilin camaa yacmaluuna, waxa ay samaynayaan ilaahay ma mooga ee waqti kale ayuu u dib dhigayaa oo maalinka qiyaamo ah. intaas ayaan casharkeena ku joojirina. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.